kulan wacan daawada waxaad ku soo dhawaataa janaalka Lewaya Films oo aad ka barateen warbixinada ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. muuqaalkana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xidiga adduunka ugu caansan marka ay noqoto xirshada turban ama duubka. waa xidig ka soo jeeda Punjab magac weyn ku leh haatana wuxuu ka xamaashaa Bollywoodka. waa Diljit Dosanjh oo aan kaga hadlayno warbixintan maanta. xidigan ayaa film jirista wuxuu kasoo bilaabay Punjab Film Industry wuxuuna sheegay markii uu gacanta ku dhigay filimkiisa ugu horeeyay ee Punjabka ah inuu si weyn ula macaamilay. Diljit wareysi uu siiyay BBC Asian Network ayuu arrimo badan kaga hadlay wuxuuna sheegay in dhibaatooyin dhowr uu ku saabsan xagga muuqaalkiisa uu la kulmay. ugu horreyn dad badan ayaa igu dhaheen wiilka xiran duubka inuusan filimada hogaamiye ka noqon doonin. waan ku raacay oo ma jirin wax tusaale ay siiyeen. waxaan ka hadlayaa Punjab film ma ahayn Hindiya films. waxaan bilaabay inaan gudagalo iyo inaan sameeyo filmada aan sameeyay way guuleysteen. intaas kadibna asxaabteeda aan filmada isla sameynay ay guuleystay waxay dhaheen waa caadi filmada Punjabka laakiin ma rabno in filmada Hindiya aan u soo saarno. yaan u dhiibnaa anaga uma dhiibi karno. Diljit wuxuu xiran yahay duub daawadayaasha Hindiya si aan caadi ahayn ayay u jeclaanayaan. Diljit oo wareysi halkiisa ka sii wata ayaa ka hadlay sida uu ku helay filimkiisa ugu horeeyay ee Hindiya kaas oo ahaa Urta Punjab. sida dhabta ah waxaan helay filimkayga ugu horeeyay ee Hindiya waxbana kama fikirin inta aanan sameynin ka hor oo ah inaan sameynayo kan amaba in talaabadan aan hor u qaadayo. tana waxay ku dhacday si dabiici ah wax mas'uuliyad ah kuma lahayn. waxaan u shaqeynayaa rabitaankayga ee ma ahan wax qabad bulsho ama siyaasadba. xoogaa waxaan haystaa mas'uuliyad. waxaa jira asxaab oo sameynayso shaqo aad u wanaagsan. waxaan ahay qof isjecel oo asiga iska turjumaya. xidigan ayaa la weydiiyey maadaama uu xiran yahay duub in filimada qaarkood doorarka qaar inta uusan sameynin ka hor uu ka fikiro kuwaasoo way ku jiri karaan door qof sigaar cabo ama doorar kale kuwaasoo xumaan ah maadaama duubka anshaxumadaasi aan lagu barnayn. wuxuuna ku jawaabay ereyada qaar iyo filimada qaar oo aan waqtigaas duubayo kooxdeeda way og yihiin. inta filimada ka hor aan su'aalo weydiiyo meeqa filim ayaan ka soo tegay maxaa yeelay waxaan ku fikiray in filimadaas inay soconayaan laakiin Punjab lagu dilayo. xidigan ayaa sheegay inuu filmo badan iska diiday ayna ugu wacan tahay in lagu amro inuu iska siibo duubka. waxaa jira doorooyin noocaas ah oo aan helay iyo doorooyin duubka leh kuwaasoo aan la ii sheegin inaan iska siibo iyo doorooyin kale oo lagu qasbay inaan Ingiriis aqaano. marka hadda diyaar uma ihi waxaan haystaa shaqooyin. xidigan ayaa ugu dambeyn la weydiiyey in majalada Fogo ay dhawaan saartay asiga Karan Johar iyo Kareena Kapoor boggeeda hore in lagu xujiyay in uu bixiyo wareysi af Ingiriis ku baxayo. laakiin ma ogolaan inaan bixiyo wareysiga sidaasna aan ku helay Fogo magazine. waxay si gaar ah noogu waceen London inaan sameyno sawir qaadis. waxaan la yaabay markaan diyaaradda galaya waxaan dhahay dadkan waxay ticket iyo hotel noo siinayaan inaan sameyno sawir qaadis. markaan dhameeyay sawir qaadista Fogo wariyaha ayaana dhahay aada wareysiga qof walba waa la wareysanaa. waxay weydiiyeen luqadda Ingiriiska sidaas daraaddeed halkaas waan iskaga soo tegay. waxaan dhahay waad mahadsantihiin kaliya sawirada isticmaala. xidigan ayaa wuxuu dhawaan sameeyay filimka guuleystay ee Good News oo ay la waday Kiara Advani, Kareena Kapoor iyo xidiga kale ee Akshay Kumar. waad ku mahadsantahay daawashada warbixinta. haddii aad ka heshana la wadaag asxaabtaada.